madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madax kale oo ka tirsan hogaamiyaasha qaaradda Afrika ayaa waxay magaalada Djibouti uga qayb galeen munaasabad lagu caleemo saarayay madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo dhawaan dib loo doortay kadib doorashadii ka dhacday wadanka Djibouti. faafahinta warkaasina waxaa magaalada Djibouti nooga soo diray wariyaheena halkaas inooga soo waramay Mikail Cabdirashiid Barre. munaasabadan oo isugu jirtay dhaarin iyo caleemo saar ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Somaliland iyo waliba madaxweynaha Puntland. waxaa sidoo kale yana ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn iyo waliba madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame, iyadoo sidoo kalena madaxweyne Umar Xasan al-Bashir uu goobtaasi goobjoog ka ahaa. waxaa sidoo kale yana ka soo qayb galay madax iyo diblomaasiyiin kala duwan oo matalaysay wadamo badan oo ka tirsan caalamka. xafladda ayaa ugu horeynba waxaa goobtaasi madaxdii kala duwaneyd ay si aad u sarreysa ugu soo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti. madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ayaa markii la caleemo saaray kadib waxa uu sare u qaaday calanka Djibouti isaga oo goobtaana ku dhaartay inuu si daacad ah ugu shaqayn doono wadankiisa. ونحترم الدستور والقانون ونرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن نحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شيء. madaxweyne Geele oo 5 sano ee soo socota hogaamin doona wadankan jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa uu ku dhaartay inuu si cadaalad ah u maamuli doono dalkiisa isla markaana uu dhowri doono sharciga iyo dastuurka dalka u yaala. Mikail Cabdirashiid Barre, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Djibouti.